saxafiyiinta ka howlgala gobolka Togdheer ee Somaliland ayaa madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ugu baaqay inuu caafis u fidiyo saxafiga samafalaha ah ee Cabdimaalig Muuse Xoldoon oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku xidhan xabsiga magaalada Hargeysa. wariyayaashan oo kulan isugu yimi ayaa madaxweyne Biixi ugu baaqay inaanu suxufi Xoldoon ka reebin maxaabiista uu cafiska u fidiyay ee ku xidhan xabsiyada dalka. 20 jeer ka badan inta ama suxufiyiin hadashay ama bulsho kale hadashay malaa waxaan u malaynayaa madaxweynuhu inaanu waxba Facebook-na akhriin warbaahintana dhageysan. waxaanu filaynay sanadkii cusbaan cafiska lagu daro markii sanadkii cusbaanna dhaafay haddana waxaanu filaynay in maanta oo xanuun khatari jiro oo qof dil geystay mooyaane iyo qof haysta mooyaane aan cid kale jeelka lagu sii hayn karin inuu dabadda u soo baxo 575 maxbuus buu maanta cafis u fidiyay madaxweynuhu wayna mari weyday Cabdimaalig baa hog ku sii jiro oo sii haysta waxaan filayaa anugu sidani ka weynay ma dhul baa lagu haystaa Cabdimaalig ma dhul baa lagu haystaa cid dhul uu ka qaaday baa haysata ma dad gaar ah daba socda miyaanu warqad yar oo madaxweynuhu qoro oo cafisa miyaanu ku soo bixi karin ma cid buu dilay waxaan u aragnaa in ninka la taargid gareeyay waxaan u aragnaa inay tusaale warbaahinta loo dirayo tahay waxaan u aragnaa inay si gaar ah loo taargid gareynayo haddaanay taasi jirin oo cid gaar ah maanta jeelka kula hadhay talaabaha ka qaada cidda haddii kale waxaanu baaq ku diraynaa in ninka xorriyadiisii loo soo celiyo taasaanu maanta annagu barimayna maanta Muuse Biixi Cabdi maanta dib u barimayno ummadda bariday salaadinta bariday culimada bariday uu naga aqbali waayay waxaanu leenahay hayso ha ku dhintee Cabdimaalig sanadkii cusbaa uu ka hadhay oo waa laga reebay maanta waxaanu filaynay cafiska maxaabiista 500 kor dhaafay 600 ku dhow inuu soo raaciyo madaxweynuhu maantana waxa la leeyahay waa laga reebay arintani sartu xagee ka qurunsantay maxaa khaldan meesha maxaa ku jira madaxweynuhu waanu ku baaqnay oo waanu kula hadalnay oo waanu ku barinay madaxweyne ninka intaaba soo daabaan ku lahay waxa weeyaan ilaaha koonkan ilaaha leh ee ummadan abuuray wadankan koonkan iska leh ayaa dambiga dhaafa oo wax cafiya waxaan kuugu baaqanaa madaxweyne xanuunaa dilaacay waad ogtahay xanuunka halistaaba dilaacay maxaabiista waxaad u siideysay waxaasuna wax kala maaho xanuunkaas aad ka carris inaad kala cararto ninkaas samafala ee suxufiga ah ee muddada jeelka ku jiray ee sanadka imika ka soo laacay inaad kala carartaa bay anagu si kale ayaanu xariga Cabdimaalig maanta u arkaynaa ugu dambayn cafiska uu dambeeyay ee 574 qof ay ku jireen waa laga reebay garan mayna sababta laga reebay cid walba cafiskaas waa ku jirtay cid kasto qaranka dhibana ka hay ama jabhada ha noqdaan ama cid kale ha noqdaan ama tuug ha noqdaan waa la wada cafiyay Cabdimaalig nasriga Ilaahay waa u maqan annaguna talaabada noogu haboon ayaanu qaadi doonaa dadkii jilicsanaa ee Cabdimaalig Muuse Xoldoon uu ahaa aabaha iyo hooyada iyo gargaarka ayaa 90 jeer baa quuda oo ka codsaday madaxweyne inaad sii deyso maantana madaxweyne laba cafis bad maraysa inaad ka reebto madaxweyne waxaan u aragnaa baaqyada dadkii ku doortay ay ku jiraan oo u badan yihiin oo dadka reer Somaliland ay ku doorteen ay dadkaas oo dhan ay hayeen oo waxay kala duwanaa bulshada muhiimka u ahaa inaad aqbal weydo maanta waxaan u aragnaa in arrinkaasi arin adag tahay Cabdimaalig Muuse Xoldoon waxaynu ognahay dambiga ku xidhan yahay wuxuu yahay weyn ognahay iyo cidda soo xidhay dadkii shalay la cafeeyna kiisaskii ugu waaweynaa dad galay ayaa ku jiray oo la wada ogyahay annagoo filaynay shalay toolayna Cabdimaalig la raaciyo dadkaasi hadday dhici weyday ilaa hadda madaxweyne waxaanu ku leenahay cadaalad baanu ka sugaynaa Cabdimaalig Muuse Xoldoon u sii daa reerkiisii caruurtiisii iyo waliba dadkii danyarta ahaa ee uu caawin jiray sanadkii hore ayaanu filaynay in dadkii aad cafiday Cabdimaalig lagu daro haddana maanta oo dad ka badan 500 qof aad cafiday laga reebay waa ayaan daro Somaliland u soo hoyatay madaxweynihii shacabkani doortay baa tahay marka waxa loo baahan yahay in dadkaaga u dhagan nuglaato Cabdimaalig Muuse Xoldoon maadaama Cabdimaalig Muuse Xoldoon caawiyihii danyarta iyo bulshada jilicsan caawin jiray maanta laga reebay 574 qof waan gaariyo Allah u naxariistay wax laga hayaa gafkana bashar baad u tahay qalad dhacayna ka garowdana gobi caadadeed tahay mudane madaxweyne siyaasiyiin iyo mas'uuliyiin iyo danyar qof kasta wuxuu kala hadlay arinta Cabdimaalig Muuse Xoldoon waxaanu leenahay oo aan ugu baaqnaa warbaahinta kala duwan ee guud ahaanba Soomaalida iyo caalamkaba in arintan Cabdimaalig laga wada tashado xukunkii la xukumay iyo muddada inta leega uu xidhan yahay qaar dad baa la xidhnaa maxaabiisa oo xukunka lagu xukumay in lagu xukumay sidaa darteed waa la cafiyay anagu ma garanayno miisaanka inta leega uu leeyahay kiiska Cabdimaalig kuwii kan kiis ahaan ka cuslaa waxa lagu eedeynayo waa la siidayo suuqa joogaana waa xor Cabdimaaligna wuu xidhay waxaanu niyadda ku dhisanaynaa sugaynay cafiska loo fidanaya dadka tii sanadka iyo tanba inaad cafiyeyso Cabdimaalig ku jiri doono laakiin shalay naxdin bay nagu noqotay iyo anfariir inaan ku weyno dadkaas waxaanu u aqoonsanay hadaan warbaahinta nahay iyo dadka ku dhaqan gobolka Togdheer ninkaas ka soo jeedo inaad meel ka sareyso adiga la haystaan haddii aad adigu haysato qalinkaaga Cabdimaalig muu diideen marka madaxweyne waxaanu ka codsanaynaa mar labaad ka codsanaynaa mar saddexaad ka codsanaynaa in aad cafis aad u fidiso samafala Cabdimaalig Muuse Xoldoon Axmed Salebaan Carab Axmed Kaafi
bulsho TV burco.